Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa 3 arrimood ha samaynin haddii aad YouTube ku cusub tahay. 3dan arrimood haddii aadan samayn waxaad arkaysaa isbeddel fiican. Aad ayaynu ku anfici doontaa haddii aad qaadato 3dan talo aan ku siinayo. Qof walba oo YouTube ku cusub wuxuu rabaa inuu helo views aad u badan iyo subscribe. Marka waxaan kuu sheegayaa waddadii aad ku heli lahayd views aad u badan iyo subscribe aad u tiro badan. Run ahaantii barnaamijkan qof walba oo YouTuber ah wuu ogyahay, laakiin waa goorma ayaad isticmaali doontaa. Laakiin haddii aad ku cusub tahay adigu YouTube-ka, iska ilaali inaad isticmaasho. Kaliya waxaa isticmaali kara dadka YouTube-ka nambar badan oo subscribe haysta. Haddii adigu aad wax subscribe haysan ama wax views haysan, run ahaantii way adkaanaysaa inaad hesho views aad u badan iyo subscribe. Sababtoo ah waxyaabaha qaar haddii aad samayso waxay kaa hor istaagayaan inaad hesho subscribe iyo views badan inaad hesho ayay kaa hor istaagayaan. Marka si aad isaga hor istaagin viewskaas iyo subscribe-taas, ka hortag waxaan oo ha samaynba. Lambarka koowaad waa hordhaca muuqaalada. Hordhaca muuqaalada wuxuu noqon karaa waxyaabo badan. Waxaa laga yaabaa inaad muuqaalkaaga aad leedahay qurxi, kadibna aad u samayso muuqaal yar oo hordhaca oo ku qoran yahay channel-kaaga magaciisa, kadibna aad ku dartay subscribe button adigoo isdhahaya channel-kaaga qurxi oo dadku magacaaga ha bartaan. Way wanaagsan tahay dadku inay magacaaga bartaan, laakiinse waa goorma aad u baahan tahay inay dadku magacaaga bartaan. Dadka ma siinayaan magacaaga, laakiin muhiimadda waxay saarayaan muuqaalkaaga waxa uu ka hadlayo. Marka si uu qofku u fahmo muuqaalkaaga waxa uu ka hadlayo, waxaa muhiim ah inaad ka reebto hordhaca muuqaalka. Haddii laakiin hordhac muuqaalka aad samayso, qofku hadiiba ma fahmayo muuqaalkaaga wuxuu ka hadlayo, wuuna isdhaafin doonaa muuqaalkaaga. Lambarka labaad, u samee muuqaalkaaga thumbnail qurux badan. Ha samaynin thumbnail aan muuqaalkaaga. Waxay keenaysaa muuqaalkaaga inuu yeelan waayo wax lagu soo raaco ama wax calaamad ah. Lambarka saddexaad, ha baryin subscribe. Haddii aad YouTube ku cusub tahay, waxaad raadinaysaa subscribe inaad hesho tiro badan. Marka subscribe-ka aad helayso waxaad ku heli kartaa qaabab kala duwan, laakiin marnaba ha baryin subscribe ama ha dhihin dadka subscribe isaara, waxyaabo noocaas oo kale ah. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.